بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم وفقنا لما تحب وترضى أيها الإخوة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تبارك وتعالى يوم هذا السكالة مساجد كان نقول كل مياه صلاة مغرب نتكني الله ينقى قبله صلاة عشاء أيان سجينا إلهي النبي قليه إنه قارسيو فننقى قبله كلمة قوبا أيان شعلها إن شاء الله تعالى إنان درسيا كردقه waxay ku saabsan tahay xadiis nabigeena sallallahu alayhi wa alihi wasallam uu leeyahay thalathun munjiyat wa thalathun muhlikat fa amma al-munjiyat fa shuhhun mud'a' wa hawan muttaba' fa amma al-muhlikat fa shuhhun mud'a' شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه وأما المنجيات فالعدل في الغضب والرضا والقصد في الفقر والغنى وخشية الله في السر والعلانية دين إلهي نوسو دجيي ولا ليال قرآنك يا سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحا أساسها بني آدم كبحي مسل حديثة إن لا أمره بحي أكوبت باديه بحي دنتيسة إن لا أمره وحي أكوها لك سمية ليب أكينا ينا إن لا قريبه تام هذا وحوي بني آدمكو قراد أهان يا مسكح أهان اسكما في الله إنه إلهي وحي قيسة تبارك وتعالى وهلم ويه أسوي اسكما في الله مروا بحوبة هي إنه هلو إلهي تبارك وتعالى توجيهيس إن لهاجو وحلت الصو إن لي هذا ماشان هالاسمه كوتشرتا ماشان مصلحة كوتشرتا هدو تاوايو ابن آدم كو قرات كيسية مسكح دي سكما في الله وحكتم بدنا يا هودا النفتيس الشيطانك وحيالك لا تشيدني هدو وايو إلهي الشرعي تبارك وتعالى الشرعي قلنا وحو بدنيه اللواء قضبه كفرديها وحيال الله يسأمريه وحيال الله يسكريبيه وحيال الله يسأمريه وحي أقيب سمان وح أمر كودو واجبيه وح أمر كودو وصميه وحيال الله يسكريبينا وحي نقونا يا وحياله حاران iyo waxyaalo xaaraanta ka sokeeyo mukruhaad ay dhahaan ya reebitaankooda la reebeen aad loo sii adkaynin waxa weheliya waxyaalaha mubaahaadka ilaahay inoo baneeyay ayaa weheliya xadiidkani marka wuxuu ku saabsan yahay lix arrimood waaye saddex waa lagu badbaadaa saddexna waa lagu halaagsamaa النبي وحده صلى الله عليه وسلم سدح ذا لجو بدبادو سدح ذا لجو هلاك سموبا يهور مري سدح ذا ذاتك هلاجا النبي وحده صلى الله عليه وسلم شح مطاع بخيلني مو لا أدع سيء والروحي انتي بخيلني ما كود عضو شحي جواح اللي هذا وبخيلني ماذا زائد حتى أفكار بخيلني ما كود عضي مركزه هدنا
bakhaylnimadii meeshuu iska daaweyn lahaa la dagaalami lahaa muusan yeeline iyadii buu ka amar qaatay oo iyadii buu raacay iyadii buu isu dhiibay haddii bakhaylnimo aad isu dhiibto xakay ku geynaysaa way ku halaagaysaa bakhaylnimadu maaha xoolaha kaliya lagu bakhaylo maaha wanaag oo dhan bay naftaadu kaagala bakhaylaysaa inaad cilmi sharciya barato naftaadu waa diidaysaa way ka bakhaylaysaa in aad xooggaaga dadka ku anfacdo way ku diidaysaa inaad wajigaaga ku anfacdo way ku diidaysaa xoolahaaga inaad bixiso way ku diidaysaa shuxigu waa ka guda weyn yahay xoolo lagu bakhaylo kaliya bini aadamka inta badan waa lagu abuuraa lex jeclada iyo inuu wax ceshado iyo inuu wax kaydsado iyo inuu wax reebto waa ku abuuray laakiin midda la diidan yahay waxay tahay shuxiga kugu jira waa inaad la dagaalanto waa inaadan isu dhiibin waa inaadan ka amar qaadanin waa inaad diiddo haddaad yeeli weydo shuxigii kugu abuurnaa lex jecladii iyo bakhaylnimadii kugu abuurnayd haddaad ka amar qaadato waad halaagsantay markaa saas daraaddeed baa qur-aanku laba meeloodoo ka mid ah liibaanteenna wuxuu ku xidhay in bakhaylnimada naftaada lagaa ilaaliyo alla wuxuu yidhi waman yuuqa shuxa nafsih fa ulaa'ika hum lmuflixuun laba meelood bay qur-aanku ku timi naftiisa shuxigeeda lex jeclada zaa'idka ah bakhaylnimada zaa'idka ah gacan adayga zaa'idka ah naftiisa bakhaylnimadeeda ruuxa laga ilaaliyo kaas unbaa liibaanay buu alla yidhi tabaaraka wa tacaala saas daraaddeed in aadan isu dhiibin rabitaanka naftaadu xuquuqdii bay diidaysaa xataa waajibaadkii lagugu lahaa bay diidaysaa marka maxaa la rabaa la dagaalan iska celi amarkeeda ha qaadanini intaad u aragto inay cadow tahay la jihaad saas daraaddeed baa qur-aanka kariimku wuxuu inoo sheegay nafta bini aadamku 3 nafood buu sheegay naf waa mid uu ku tilmaamay ina an-nafsa la ammaaratun bisuu xumaanta ay dadka aad u amartaa naf labaadna wuxuu ku tilmaamay lawaama falaa uqsimu binnafsi allawaama waa naf eedayn iyo dagaal badan waxay yidhaahdaan culimmadu asalka nafta bini aadamku waa ammaara bisuu laakiin markii la tarbiyeeyo oo ruuxu la dagaalamo wuxuugaa way soo dabacdaa markaas waxay timaadaa marxalada ah lawaama naf kula dagaalamaysa adna aad la dagaalamayso mar bay kaa rayn mad waad ka rayn mar way ku legdi mar waad legdi dagaal baa idinka dhexeeya yaa mar way ku jiidan mar waad soo qaban marxaladii hore ay kaa adkayd way ka timid laakiin marxalo waxay joogtaa aad laga tamaysaan markaad dagaalkeeda sii wado marxalada ku xigta way isdhiibi markaa waxay noqonaysaa nafta ilaahay sheegay saddexaad ee ah yaa ayatuha an-nafsu al-mutma'inna naf xasiloon oo khayrka ku xasiloon oo wanaagga jecel oo xumaanta ka didaysa oo aan rabin bay noqonaysaa markaa xaggeed ka keentay meel fog baad ka keentay dagaal adag baa idin dhex maray meelo fara badan baad kaga soo adkaatay waad soo waday marka ugu dambaysa way ku ogolaanaysaa hoggaankay qabsanaysaa laakiin waa goorma waa markaa dagaal adag la gasho kadib waa midda nabigeenu leeyahay sal alla alay wasalam almujaahidu man jaahada nafsahu fi llah mujaahid waxaa la yidhahdaa ruux naftiisa ilaahay dartii ula jihaaday marka hore waa iska kacaabin durba isu kaa dhiibi mayso waxaad kala kulmi muqaawamo adag inay iska kaa celisay isku day laakiin markaad ku madax adeegto way dabci dadkuna meeshay ku kala fiican yihiin halkaas waay sidaas daraaddeed
shuxun mutaac bakhaylnimada kugu jirta ha yeeline ka dagaalan oo la dagaalan haddii kale waad halaagsamay qodobka labaad ee lagu halaagsamay nabigu sheegay sallallahu alayhi wasallam waxa weeye hawan muttabac hawa la raacsan yahay hawada waxa la yidhaahdaa waxay naftaadu jeceshahay haddii naftaadu say rabtaba aad yeesho oo waxay ku amartaba aad ka yeesho oo aad ku raacdo heer waxay gaari doontaa marka dambe ay ilaahay isaga ka dhigto oo ilaahayba ku noqoto baad caabudo waa ka quraanka kariimka ilaahay ku sheegay afara'ayta man ittakhadha ilaahahu hawaa bal ka waran mid naftiisu sidii rabtay ilaah ka dhigtay ilan ilaah soomaa midka laga amar qaato amarkiisa la yeelo hadday naftaadu ilaah isaga ka dhigto oo waxay ku amartaba aad ka yeesho dil waa dishay waxay ku tiri zinayso waad zinaysatay xamo waad xamatay soomaaliyeed xad gudubtay iyadaad iska daba gashay halkaasoo kale markaad gaadho ilaah bay kuu tahay ilaah baad ka dhigatay marka waxaa la rabaa marka hawada naftaada waa inaad aadan raacin hawada naftaada waa inaad diido sidaas daraaddeed baa ilaahay qur-aan kariimka wuxuu ku sheegay badbaadadu inay ku jirto in aad hawada naftaada diido wa amma man khaafa maqaama rabbihi wanaha an-nafsa 'ani al-hawa fa inna al-jannata hiya al-ma'wa ruuxii ka baqa ilaahay hor istaagiisa inuu ilaahay hor istaagi doono isagoo keligii oo qaawan ayuu ka baqayaa baqdintaasuu qabaa naftiisuna siday rabto u diiday jannada ayaa hoygiisa jannadii maxaa lagu xidhay laba qodob ilaahay hor istaagiisa inaad ka baqdood u diyaar garowdo naftaaduna waxay kaa rabtay xumaanta inaad u diido markaasaad janno leedahay soomaalit halkaasay marka ku xidhan tahay sidaas daraaddeed meesha lagu kala baxay lagu kala tegay taas waay nafta hawadeeda ha yeelin hana raacin iska celi laanna naftaadu kugu jirtaaye waxay saaxiib la tahay shaytaanka isticmaala shaytaanna waa cadowgeenna koobaad waaye soo maa ina shaytaana lakum caduwun faattakhiduuhu caduwan shaytaan waa cadowgiina cadow ka dhigta ugu talagalay inuu cadowga iska celiya cadowgaagii bay saaxiib la tahay iyaduu isticmaalaa iyaduu kuu soo maraa iyaduu adeegsadaa haddaadan marka ku baraarugin oodan iska celinin meel xun bay kaa tuuri aakhiradaada iyo adduunkaaga ku seejinaysaa sidaas daraaddeed waa dagaal gudahaagaa waa dagaal gudahaagii adiga baa gudahaagii dagaalamaya wax gudahaaga ku jiraad la dagaalamaysaa dagaalna waxaa kuugu daran midka gudahaaga ka dhaca cadow bannaanka ka oo bannaanka la dagaalamaysa iyo wax kugu dhex jira ka waran sooma kala duwana sidaas daraaddeed hawada naftaada ha raacin khilaaf wakhaalif an-nafsa wash-shaytaana wacasihima nafta iyo shaytaanka ha raacin caasi waxay ku amraan ha yeelin khilaaf saasaad ku badbaadi markii yimaado waajib markuu yimaado naftaadu waxay ku leedahay maya iska seexo xaaraani markay timaado waxay ku leedahay maya iska dhimale ilaahay baa kuu dambi dhaafaya ilaahay waa qafuur raxiim ya gadaal baad ka toobad keeni doontaa meelo badan bay kaa soo geli ha yeelin taxadarkaaga qab qodobka koowaad marka wax weeyaan bakhaylnimada la adeecsan yahay waa halaag qodobka labaad waxa weeye hawada naftaadeed raacayso waa halaag iyo balwada naftaada oo iska dabagelayso qodobka saddexaad ee nabigu halaaga ku sheegay waxa weeye waxaan u jeedaa uu ku sheegay in lagu halaagsamayo ama dadka halaagayo nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam i'jaabu mar'i bi nafsihi ruuxu inuu naftiisu cajabiso
حلقة وضع إن النفط هذا أبوكتو ودس عجبسو ووحدنا هين أتسمودو وحدنا هين أتسمودو أضو مسكين وأضون وضعيف بعد وحدنا هين بأتسمودو أذيقو أو عاصي والدنبيلة يا والدنبيدو كابتين أيها واحد اسكت بعد عسي ما والله أهل الجنة وحكا في عم بمجر سمعت عمل كابي يرابا كعجبي واجباتك صلاة تكنيس أيها واحد استريبه والله وابسبه وحكا في عم بمجر علمي قاقا كعجبي xoolahaaga ku cajabiyay quruxdaada ku cajabisay kursigaaga ku cajabiyay caruurtaada ku cajabisay Soomaaliyeed naftaada in aad isla weynaato waxaadan ahayn aad ismoodo taas buu nabigu sallallahu alayhi wasallam iyadana waxyaalaha bini aadamka halaaga wahay say ku halaagaysa xadiidka uu nabigu sallallahu alayhi wasallam haddii aydan dambaabi lahayn waxaan idinka baqilaa wax dambigaba ka weyn maxay tahay iscajabinta nabiga sallallahu alayhi wasallam maxay ku salaysantahay waxay ku salaysantahay iscajabintu inaad naftaada horta marka hore ceebaheeda arki weydo la naftaada ceeb baa ka buuxda Soomaa ceebaheedii baa laga qarinaya markaas waxa ku muuqanaya dhanka fiican adigii oo dhan waxaad iska akhrinaysaa dhanka fiican dhankaagii xumaan oo dhan waa laga qarinaya xumaantaadii oo ku qarsoon oodan ku muuqanin waxoogaagii yaraay wanaag ahaan aad ku mashquulsan tahay ayaad marka ku tagi ood ku geeriyooni waa nooc taskiyatu nafsi waa naftaada oo amaanayso saas daradeed baa ilaahay quraanka muxuu ku yiri ya فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى نفتينا وحبها أماننا وحبها اسمه بونين وحبها يسلوينان الإلهي باكايا قانا وحاتا صوما هو أعلم بمن اتقى عدة إلهي كبقى يسيو ونكسني عدة حن إلهي بايدين كحوق قالس إلى مالك أدورك هو يدا كجرت إلى أظن طلع نبا لقاور هاي وركم حسوا عجبيني حجاب المرء بنفسه تابدل كيدا إلهي وحوش عليها إنه أدونك هوس يصدقه إنه تواضعه إنه إسليده إن آد يقولك إسلكته حديث النبي وحوها إلهي سندي سوحوها هدو أدونك هوس يصدقنا إلهي قربه أقعدها مال ما كم ذا وحاج شري قال قيل والنبي صلى الله عليه وسلم قاديد كدين شرو فولي شري قلبي هجيس حضباء حش النبي قفولي شري هل آد وديريسيه neef ka dheereeyaa la waayay maalinkii dambe wiil yar oo geel jira oo qaalin saaran ayaa yimid hashi nabigu la tartamay waa ka dheereeyay saxaabadii waa murgeen seeba hashi nabiga looga dheereeyay oo haddana wiil geel jira qaalin uu wato uga dheereeyay nabigu wuxuu ku yiri sallallahu alayhi wasallam Allah tabaaraka wa ta'ala أكتيسة شيء اسمه كوريال إلا إلهي هوس بودقة محل قوضة هاشني فان كيدي ورك يدا بطي صوما ورك يدي ما بطي لقى ما بدين كرو وحكب بدي ولا واي إلهي مركب وحر بقى هاشني إنه كسر لي حقيقة ده واحد لقى الربيع وحنا هين إن له كسر لي على الربع صومارت مركب على الربع هوس صدق هذا هو السودي وحيده حقيقة هذا ما له تفسيره نبي الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وأنبياء بني إسرائيل أنبياء دي نيكي أوفض بناء ري بني إسرائيل أنبياء دي الله دري وللعزم كم بدها أيا إسقوا وضدك سيدنا وكر ري بني إسرائيل وانين يا وحدين أيا سؤال ويدي وحلو يري موسى دولك أنت جوكت يا أبو فضل يا أبو علمي بدن صحيح البخاري وحديث كياله
dhulka inta joogta yaa ugu cilmi badan Muuse saasha la weydiiyay nabi Muuse alayhi wa ala nabiyina salatu wassalaam wuxuu yiri ana u cilmi badan waana isaga de markaa say la ahayd oo kitaabkii tawreeda baa lagu soo dejiyay oo quraanka marka laga tago kutubtii Ilaahay soo dejiyay kitaabka ugu weyn waa tawreed buu ah marka ana u cilmi badan buu yiri علمي ما دام وصل الله أعلني الله أعلم طوله له امتحان مدعي لكن ما دام وإذا أنا أعلم بدل دولك أنت تشوف توالى امتحاني الله حكيري دولك واحد شوقة الضون كي أوقع علمي بدل مركز روحي للرب يو سينكو قارا سين أقول سين علمي بالربعين وكصبرته سين ugu taga kadibna waxa loo sheegay sidoo ugu tagi lahaa jidku mari lahaa dhulku joogo nabi Muuse alayhi wa nabiyina salatu wassalaam wuxuu qaatay wiil adeega abu ka haystay sahayb uu qaatay jid dheer buu maray way rafaadeen meeshii loogu sheegay markuu tagay ayaa calaamadii la siiyay calaamadda marka aragto meesha ka raadi calaamadii buu arkay رفات كذب وأكل لك كل ماي قصة سورة الكهف آخر كذا لقشكي قصة خضر إيوه نبي موسى وكي خضر أتجي إنا وحب كابرتان ربا شروطها كحري إسرائيل قصة لقشكي سمعت نبي موسى ربن إسرائيل سقى علمي بدنا لكن ما دام ومركي سؤال تمد أوله ويا الله أعلم أو يدي أنا علمي بدن وحلويلي ولا علمي بدنيا صوما مركا وحال الربا مرولبا وحي إلهي كسيي الدومة كاسي تاجرة مركا إناد خصو دكتو معنى هذا معها نبي موسى كبري معه أبداً أنبياء الله تبارك وتعالى كبركو كما دعوا لكن سؤال او جوابه يصيدا سكف يعني انه قد جوابه با امتحانكو كدش سمارت marka inaad hoos soo dhigto ayaa sax dan isweynaysiinin iskibrinin isafuufin waxaadana inaadan iska dhigin hadii kale wad halaagsamaysaa ilaahay tabaaraka wa taala adoomadiisa kii hoos ugu dhigana wuu qaadaa kii kor isu qaadana dhulka la dhigaa tabartiisii wuxuu yahay la tusaa qodobkaasina waa qodobka labaad saddexda qodob halaag bay keenaan inaad bakhiilnimada raacdo adeecdo inaad hawada naftaada raacdo iyo inaad iscajabiso adaynu wax kasto dadaal la nimaano dadaalkeenu uma dhigmo wixii la inaga rabay uma dhigmo si kasta dad noloshaada dhan dadaasho hal nicmo ilaahay nicmooyinkiisa kamida dadaalkaagu uma dhigmo سلدا وقاعد سو إلهي إشرا إنه قمنا نعمل هل إلا لوضع إنه تكمل عمريا أنت أن الله هدين الدلال هل كإشعة نعمة يكفر إذا ما جودي كرر سما مرو الباء وحل قسيبة كوي واحد سمينيس مد لبعض ويا وين مرو بحسوسته واحد سمينيس الدلال كاغو ملقى أقبلين مثل ما أقبلين سو قاعد نور كجرت ما إن لا أقبلي إن لا أقبلي مو أجد مركم محبد إسلوي ينام بقى محبد كوفاني بقى ماشي ما يلا مرك صدق هذا القضب هلاك كان يوقوع صدق هذا القضب بدبادة كيمتنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم القصد في الفقر والغنى يعني لا حري العدل في الغضب والرضا مركاد عريسان تاهي هي مركاد رالي تاهيبا مركاد روحا عدو آتيين وتكو حناقسان تاهي هي مركاد تعشى هايبا عدالة دها كتاكين سمارت روحا وان اسليها وان شعل هاي عدالة دها كتاكين هبل وان نعبة هاينا عدالة دها كتاكين نولش هذا عدالة لازم خلقك مركا الله معاملون يسو عدالة كل معاملون ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا
colaad iyo cadhad dad kale idinka dhaxaysa yayna idinku xambaarin inaad ku xadgudubtaan, inaad cadaaladda ka tagtaan. waan isnacibnahay, col baan nahay, waa isku dhacsannahay, waan islaynay. ayib, wax kastooy tahay cadaaladda waa cadaalad. kaad nacib tahay cadaaladda ha ka tegin, kaad jeceshayna cadaaladda ha uga tegin. ayadda markay soo degaysa waxay ku soo degaysaa gaalo. war gaalo colaad idinka dhaxayso yayna idinku xambaarin inaad cadaaladda ka tagtaan. iska baddaa ruux muslima, si kastood ruuxa u nacab tahay ha ka tegin cadaaladda. kunuu qawaamiina lilahi shuhada'a bilqisti, kunuu qawaamiina bilqisti shuhada'a lilah walow cala anfusikum aw ilwaalidayni walaqrabiin in yakun ghaniyan aw faqiiran fallahu awlaa bihima falaa tattabicu alhawa an tacdiluu. xataa hadday naftaada tahay, naftaada hadday cadaaladdu gasho, naftaada ku markhaati fur. ya qir inaad khaldan tahay, inaad gar daran tahay, naftaada ku qir. soo maarat labadaada waalid hadday gar daran yihiin way gar daran yihiin dheh. qur-aankaa sidaa leh, ku markhaati fur. hadday xigtadaadii iyo qaraabadaada tahay oy gar daran yihiin oo khaldan yihiin, ku markhaati fur. ya tolkaa fiqi tolkii kama janna taga ha noqonin. ya tolkaa hadday naarta ku daadanayaan naarta ha kula dhicin, ka hadh. hadday khaldan yihiin ka hadh. kooxdaadu hadday khaldan tahay ka hadh. haddaad qaban karto qabo, haddaadan qaban karaynin cadaaladda ha ka tegin. sidaas daraaddeed alcadlu fi alghadabi waalridaa, waan xanaaqsanaa cadaaladda ha uga tegin. hebel waan jeclahayna cadaaladda ha uga tegin. soo qodo maa khalqiga cadaalad kula wada dhaqan, gaalkiisa iyo muslimkiisa. waa badbaado, waa badbaado. cadaaladdaasi maxaa sal u ah? waxaa sal u ah addoommada intaad fiiriso naftaada waxaadan rabin in lagugula dhaqmo, addoommada ha kula dhaqmin. miisaanku wakaa soo nabigeenu ma dhihin kama fi saxiix muslim man axaba an yuzaxzaxa can innaar wayudkhala aljanna, ruuxii jecel in naarta laga fogeeyo jannana la geliyo, falta'tihi maniyatuhu wahuwa yuuminu billahi walyawmi alaakhir. geeridu ha u timaado isagoo alliya maalinta aakhara rumaysan. maxaa ku xiga? walya'ti ila annaasi maa yuxibu an yu'taa ilayh. dadka ha ula yimaado, ha kula dhaqmo wuxuu jecel yahay isaga in lagula dhaqmo. adiga maxaad jeceshahay in lagugula dhaqmo? waxaad jeceshahay wanaag in lagugula dhaqmo, dulqaad in lagugula dhaqmo, naxariis in lagugula dhaqmo, cadaalad in lagugula dhaqmo, in lagu wanaajiyo. dadkana sidoo kale u yeelo. naftaadoo kale ka soo qaad dadka. soo ma cadaaladdu wataa marka. cadaaladda iyo insaafku kaas waa alcadlu fi alghadabi waalridaa. qodobka labaad ee lagu badbaado waxa weeyaan ee nabigu sheegay sal alla alay wasalam alqasdu fi alfaqri waalghinaa. haddaad faqiir tahay iyo haddaad taajir tahayba dhexdhexayso, noloshaadu dhexdhexaad ha noqoto. haddaad faqiir tahayna sabir oo ha u gudbin in aad faqriga iyo baahidu ay kugu xambaarto xaaraan iyo khaladaad inaad gasho. haddaad taajirto oo qani tahayna ayadana noloshaadu dhexdhexaad ha noqoto, oo waxaad iska ilaalisaa kibirka iyo israafka iyo xoolahoo lagu tamashleeyo iyo isla weynan iyo khalqiga xoolaha lagu dulmiyo. iska ilaali. soo maa haddaad faqiir tahayna sabir, haddaad taajir tahayna shukri. warku waa intaa. soo maa yani wax way markaa xaalad, labada xaaladood baa aday ku marayaan. waxaa ku maraysa xaalad aad baahantood faqiirtood waxba haysanin. xaalad kale waxaa ku maraysa faqrigii aad ka baxdood wax haysatood taajirta. labada xaaladoodba waxaa la rabaa inaadan ka tegin dhexdhexaadnimada.
middan faqriga ana sabir midda taajirnimada ah iyo qaninimadana shukri oo ilaahay u mahad celi khalqigana wixii ilaahay ku sii ihsaan uga samee wa ahsin kama ahsana Allahu ilayka sidii adigaba ilaahay ihsaan kuugu sameeyay khalqigan aad jeeb dhaanto eed wax dhaanto ihsaan u samee ilaan adigaba ihsaan baa lagu sameeyay Soomaa dadka la kaama jecla waxa lagu siiyay waa imtixaan sidaas daraadeed khalqiga ihsaan u samee xoolahana ha ku kibrin isla weynaanin masaakiinta ka warhay ka baahan ka warhay haddaad la noolaan kartana la noolow يا نبي صلى الله عليه وسلم حؤاد جعلها إنه مساكين تيدتك باهن كل إحنا أولاد لا نولاد صلى الله عليه وآله وسلم هاي اللي دتكاس ولا لا نولاد نولش هذا وحبدان بيكون كرديني السيد هذا اللي يسيد سيك الدوام واحد هذا الروح مالك يشيلن وكردو يا دتكي هوري صاحبتي سوا كجوري سوز اسمع xaafadii uu ku noolaa waa ka guuraya waa dalacaya markii waxa uu sii kordhaana saaxiibadii hore dhan waa bedelaya qolo cusub u sameysana xaafadii hore dhan lagu arki maayo waa ka sii tagay laan xoolaha yeelaya ma sidaas ma aha war soo dhex fadhiiso saakiinta soo dhex fadhiiso la noolow noloshaadu waxay noqonaysaa balance way soo dheelitirmaysaa laakiin haddaad xagga u sii foofto way kula tagi Soomaaliyeed sidaas daraadeed nolol dhexdhexaad nolow haddaad wax haysato iyo haddaad qatam tahayba ayuu nabigeenu tilmaamaya sallallahu alayhi wa sallam badbaadadu saas waa haddaad dhankan u dhacdana waa halaag haddaad dhankan u badatana waa halaag dhexda ku soco marka qodobka u dambeeyay nabigeenu badbaadada ku tilmaamay sallallahu alayhi wa sallam waxa weeye خشية الله في السر والعلانية إن الإلهي كبقضه هداد كليغات تاهي أو قرصون تاهي إيه هداد موقتو ضل تشوكتبه إلهي عبسي ديسا قلبي قاقا حكو تشرتو محاسا لولي هاي دادك غار واحد شراء مركي دادك لا تشوغان ودادك دح تشوغان حشوضة وبقى ووناك كم موقت markay kaliyeestaana oo cidlaystaana xumaanta sameeya kaasoo kale waxaad moodaa malaha markaad dadka la joogto ilaahay ku arkaya miya markaad kaligaa tahayna kuma arka miya ya allah tabaaraka wa taala xaalad walba waa ku ogyahay saas daradeed inaad mar walba muraaqabayso mar walba qalbigaaga ay ku jirto ilaahay waa ku arkaa nabigeenu wuxuu sallallahu alayhi wasallam sheegay dad maalinta qiyaamada imaan doona oo la imaan doona khayraad iyo acmaal waaweyn oo buuraha waaweyn leeg ya buulaha tihaama leeg maalinta aakhire imaan doonaan acmaashii waaweyneyd oo soon lahayd oo salaad lahayd oo xaj lahayd oo sadaqa lahayd oo khayraad lahayd ayaa waxaa laga dhigayaa sidii busta la daadiyay oo kale iyaga dhan waa la sayrayaa wixii buuraha la ekaa waxaan jirin baa laga soo qaadaya ooyeyhi nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam waa dad idinka mid ah luqadiinana ku hadlaya habeenkii saad u tukataana way u tukan jireen salaatu leyl bay tukan jireen laakiin markay dambiyada la keli noqdaan yay dambiyada gali jireen markuu cidloobo ayuu qastaa dambiyada markuu dadka dhex joogana wali ilaahay uu iska dhigaa saalixa meesha maxaa ka muuqda marka ilaahay muraaqabadiisii baa ka maqan sidaas daraadeed haddaad dad la joogtay haddaad keligaa tahayba ilaahay ka xisho ilaahay waa ku arkaa meel walbe ittaqillaha haythuma kunta rabbiga ka xisho نبينا صلى الله عليه وسلم صحابته ويدين رسولك إلهي عوراتنا ما نأتي منها وما نذر عورض النذر محان موتشنا محان سقرنا نبي حكوري صلى الله عليه وسلم عورض هذا ييسن أركن
إلا حاسكاغا إيه أدون هذا مويه مركز أوحو يلاهد رسولك إلهي وكورا هدان كيليجي كيليجي هدان داركم إسكال لغان كرا ما النبي محمد صلى الله عليه وسلم فالله أحق أن يستحيا منه من الناس إلهي بعد والبكم وضن إن لقى حشوده صمع قل كاغا دغنتها كليغا markaad ku jirto ku xidhan inaad calalada dhan dhigatood isqaawiso oo yaa ku arkay il bini aadan oo ku haysa ma jirto laakiin Allah mudan inaad ka xishooto soo saasma saastaradeed hadaad kali tahay iyo hadaad dad la joogtaba ilaahi tabaaraka wa taala ka baq oo qalbigaaga ha ku weynaado oo wixii uu rabbi raali u sakaan iska ilaali wixii rabbi jecel yahayna ku dadaal qodobadaasi saddexda ah iyaguna waa badbaado kulligoodna waxay ka hadlayaan nolosheena ka hadlayaan waxyaalo dhib leh waxyaalo dheef la waa dhaqamo waa akhlaaq wanaagsan waxna waa akhlaaq xun waay marka tawfiiqda Allah ina waafajiyo ilaahayna tabaaraka wa taala asbaabta lagu halaagsamo haynaga ilaaliyo asbaabta badbaadadana ilaahay tabaaraka wa taala hayna waafajiyo jazakumullahu khayr wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh